السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان وكليب آد وقابن وحنكو إيجينا سيدا مركي أدو كمبيوتر كاستعماليو أو برنامج يكو فرينهين أما بروغرام و سوفتوير هدي كمبيوتر كادمو أما داميsid سي مركاد ديب وداديد أي بروغرامada si سفران أو وحياليه كو سيف كريسنا أما وحياليه كو فرنا يردن si otamatic marka isugu kaafuraan qaabka sida loo sameeyo Windows 10 waxay ku siinaysaa option aad u fiican oo markaas hadii aad si macnaha lama filaana computerkaaga demo ama si ay u damisid markii aad dib u daadid isla markiiba meeshii aad joogtay aad kaaga bilaabo xataa screenkii aad fiirinaysay sidiisa ugu noqdo isagoo markaas waxyaalihii ku furnayo dhan kaydinaya oo markaa dib u daadid markaas wuxuu sidii oo horay ayuu kuugu sheegaya kuugu soo furaya sidii horay kuugu furnaayeen uu kuugu soo furayo marka taas siday kuugu suurta gasho waxaad samaynaysaa hal settings hal macnaha meel ayaa wax ka bedelaysaa meeshaas waa inaad tagtid settings start settings and accounts sign in options markaad tagtid oo casharadii hore aan kusoo wada marnay qaybihiisa kala duwan waxaad tagaysaa meeshaan ugu hooseysa oranaysa start apps automatically save my restartable apps when I sign out and restart them after I sign in marka macnaheedu waxa weeye markii aad sign out samaysid ama computerka ama damisid ama log out aad samaysid adigoo program ku furan yihiin programadaas wuu ku kaydinayaa oo meeshii hore u joogtay hadda kaba soo qaad waxa ay furan Microsoft Word waxa ay furan internet and Chrome browser waxa ay furan Excel tana ay furan oo application kan settings ka haddaan hadda damiyo oo daaro computerka dib u daaro maadaama option kan uu daaran yahay oo restart apps ay daaran tahay micnaheedu waxa way markii uu computerka isrido aan galo meeshaas aan joogo iga bilaabay oo kulli wixii ii furnaa dhan oo programadii kala duwan ii furnaa sidoodii ayuu igu furayaa marka option aad u fiican isticmaalkiisa haddii waliba aad joogtid meel oo computerka batterigiisa uu damo ama korontada ay daciif tahay ama computerka ka damayo kale markaas wuxuu kuu soo gareynayaa waxyaalihii kuu furnaa dhan sida ay ahaayeen ayuu kugu soo furayaa markii aad dib u daartid computerka meeshaan hoose oranaysa privacy oo waxay sheegaysaa macnaha emailkaaga inuu ka soo saaro computerka markuu lock yahay informationka sida emailka kale marka taasna on time macnaheedu waxa weeye computerkaaga markuu lock yahay waxyaalo wuxuu ka soo wixii emailka iyo waxyaalahaas oo kale ayuu ka soo saarayaa marka intaasaan ku joojinaynaa clipka